بسم الله. الحمد لله. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، inkastoo laga yaabo mowduucii markii hore la iclaamiyey ama ku qoraa inuu ku saabsiisnaa social media ama wasaa'il التواصل الاجتماعي ama wasaa'il التفاصل الاجتماعي haddaad doontaba dhaho, waxaan ka doorbiday inaan cibaadaadka ka warramo. dii laga maarmi waayo wakhti kale inuu ka warramay. darsigani wuxuu ku saabsiisan yahay markaa المنافع أو المقاصد الدنيوية للعبادات. مقاصد أما منافع أما الراتك أي عباداتك كليين قفك مسلم كأنه لشي سادو سيبا وحان كورمينا وحويا المباني الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم وحج البيت. cibaadaadka macruufka ah waayo waa kuwa dadku ay u haystaan inay cibaada maxda tahay oo aakhiro uun looga dan leeyay. xaqiiqo waxaa horta alaslu fi lcibaadaat inuu tacabud yahay. alaslu fi lcibaadaat waa tacabud duuna aliltifaat ila almacaani اlukhraa. in ilaahay subxaanaه wa tacaala loogu dhowaado, loogu mahadnoqo, maqfiradiisa iyo dembi dhaafkiisa lagu dalbo, janno lagaga raadceeyo, weynida alle subxaanaه wa tacaala iyo xuskiisu uu qofka muslimkaa qalbigiisa joogto ku ahaado. wa dafcun lilghafla waatagaaful, iyo baraarugla-aanta iyo mooganida iyo dhoohanida inuu qofku ka tago. kaasaa asala. laakiin waxaan leenahay wamaca daalik raad adduunye bay cibaadadu leedahay siday raad aakhiro u leedahay. aakhiro waxaynu ognahay dee waxa qurhe wax taraa waa cibaadada. waxa kale adduunka yaa loo dhamme waxba ma taraan. maadaama ay cibaadaadku yihiin waxa qurhe aakhiro wax tara, adduunka miyaanay wax tarin? manaafic iyo xikam iyo asraar dunawiya ma jiraan? waxaan leenahay haa, oo weliba waa badan yihin. laakiin muqhtatafaat ama tilmaamo kooban baan tilmaami doonaa, waayo kama gaadhayno wakhtigoo kooban daraaddeed. iyo qur'aanka ilaahay kitaabkiisu inta badan cibaadaadka asraarta iyo xikamku ka warramaaye axkaamta iyo fiqiga kama warramo inta badan. qur-aanka haddaad akhrido salaada xikam iyo asraar tiro badan oo ay leedahay ilaahay kaga warramaya, laakiin fiqigeeda iyo axkaamteeda inta badan kama warramo. walidaalika baa culammadu waxay yidhaahdaan inta badan qur-aanku wuxuu ka warramaa macaanida iyo maqaasidda cibaadaadka looga dan leeyahay, laakiin tafsiilaadkeeda iyo fiqigeeda iyo axkaamteeda inta badan axaadiistaa tafsiilisa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabuhu tabyiiniyinayay bay ku jirtaa. haddaba innagoo duuduub ahaan le cibaadoo dhammi waa dikri alle. aqimi الsalaata lidikri walitukabiru اllaha calaa maa hadaakum, iyo aayaadka la mid ah cibaadaadkaa ilaahay uu ku tilmaamay. waxaynu leenahay waxaan rabnaa cibaadada aynu ka warramaynaa waxa ay tarayso adduunka inta la joogo. siiba arkaanta afartaa baynu tilmaamaynaa. haddaynu mid mid u qaadno salaa, ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamayaa salaadu manaaficda dunawiga ay leedahay inay aad u tiro badan yihiin.
inay dhaqanka qofka iyo akhlaaqiyadkiisa iyo adkaysigiisa iyo suluugga inay wax badan ka beddesho. ولذلك baa ilaahay aayad qur'aana wuxuu ku tilmaamaya ina الصalaata tanhaa can اlfaxshaa'i wاlmunkar. salaaddu waxay reebtaa baa ilaahay leeyahay wax allaaliya wixii fuxshiya. fuxshigu waa wixii fool xun, wixii qabiix ku ah diinta, iyo wixii munkar ee diintu diidday ee reebtay oo dhan bay reebtaabaa alla leeyahay subxaana wa tacaala. bal ilaahay waxa uu qur-aanka ku tilmaamayaa dhaqamo bini aadamku uu leeyahay waxa koowaad ee jara inuu salaad yahay. maalan ilahay wuxuu leeyahay bini aadamka waxa la abuuro dhaqankiisa ka mid ah khuliqa alinsaanu haluuca idaa masahu sharu jazuuca wa idaa masahu alkhayru manuuca. dhaqanka aadanaha waxaa ka mid ah in la abuuray isagoo haluuca. haluuca labada aayadooda dambaa fasiraya bay culammadu yidhaahdaan. isagoo mid aan u adkaysanin dhibaatooyinka ee calaacal badana marka mashaakil qabsado, marka nicma heshana anaaniyo isagu isku koobo aan dhaafin. waa laba sifo labaduba fool xun yihiin. mid waxaa la yidhi marka ay dhibtu timaaddo ama mashaakilku uu yimaado waa jazuuc, waa qof halaan hal badan, waa qof calaacal badan, waa qof sheegasho badan, waa qof aan adkaysi lahayn. markay nimcadu timaadana baa la yidhi waa manuuc, waa mid aan laga fujinin oo anaaniya oo keligii inay noloshu ku koobnaato. dhibtiisii dadkao dhan buu u sheegayey, khayrku markuu yimaadana keligii baa isku koobaya. ilaahay wuxuu tilmaamay duul baan sifadaa lahayn. duulka aan sifadaa lahayn waxa lagu bilaabay ila almusalliin aladiina hum calaa salaatihim. waa la sii sifeeyey markaa. laba goor baa la sheegay haddana kuwa salaadooda daa'imaya kuwa salaadooda xifdinaya lagu tilmaamay. waa musalliin baa la yidhi marka koowaad, waxaana lagu sifeeyey inay yihiin kuwa salaadooda daa'ima iyo kuwa salaadooda xifdiya. idan qofka musalliga dhabta ah ee salaadiisu ay noocaa tahay mid xifdisan, arkaanteeda iyo shuruudeeda iyo hay-aadkeeda iyo cibaadada wanaaggeeda la ilaaliyey lana joogteeyey hadday tahay, dhaqankaasi wuu ka maydhmaa. dhaqankaasi wuu ka maydhmaa. idan waxay leenahay salaadda waxaynu u tukanayna waxaa ka mid ah manaafic dunawiyoo ah in dhaqankeenna wax iska beddelaan. waxaa laga yaabaa inaad tidhahdo dadku haddaa iminka dhaqamadoodii wax badan baa qaldane waa sidee. salaaddaa wax badani qaldantay. walidaalik ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu axmed warinayo sheekh alalbaanina saxiix ku tilmaamayo, isagoo joogaa agtiisa waxaa lagaga warramay nin saxaabada ka tirsan. markaasaa la yidhi ninkaasi habeenkiina wuu tukadaa, maalintiina waxbuu qaadaa. yacnii nin cibaadana ku jira tuuganimona lagu nabay weeyaan. waxaa la leeyahay habeenkii wuu tukadaa, maalintiina waxbuu qaadaa. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi markaa waxa aa sheegaysaan baa ka reebi. riwaayaadka qaarna wuxuu yidhi ina salaatuhu satanhaa. hadday jirto tanaa sheegaysaan, salaad inuu ninkan isaan u tukada hadday jirto iyadaa ka reebaysa buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. salaadiisu hadday sax tahay tuuganimada waa ka tegayaa buu nebigu leeyahay. dhaqankaasi wuu isbeddelayaa. waxaa ilaahay uu inoo tilmaamay nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam qur-aanadii ugu horreeyey ku soo degay. saddexdii suuradood ugu horreeyey qur-aanka qaybuhu ka soo degeen waxaa ka mid ahaa mid ka warramaysa salaad. yacni salaada faralka aynu tukanay ee shanta salaadooda ayaa micraajkii la waajibiyey inay shanta noqoto. ama ka salaad ahaan waa ka horraysay. ka salaad ahaan waa ka horraysay. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iqra baa ku soo degtay aayaadka ugu horreeya. mudathir aayaadka ku xigaa ku soo degay bay culammadu yidhaahdaan. waxaa ku xigtay baa la yidhaha muzammil. waxaa ku xigtay suurat alqalam. culammada badhna waa isku qasaan riwaayaadka qaarkood waa isu idweydaariyaan. ayan kaanat waxaynu leenahay qur-aankii ugu horreeyey ee soo degay nebi maxamed ku soo dega kanbaa ka mid ahaa. ilaahay muxuu leeyahay yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إلهي وحفر يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام سورة هري يا أيها المدثر قم فأنذر بالي كعودتك ودك وهل قف وليلي بشر كوردن كهرتك مبادئ كلا هرتك دوني دردن بدل قفك عليس انتين لك بفولية وليا هندن بي wax qorqora hadii project-ka ayna dunida bedesho lagu daro maxaad oran lahayd waxaan raadinayaa project plan baan dhigayaa ah resources-ka aan u baahanahay si aan dunida u bedelo resource-ka dhaqaale iyo dad iyo waqti iyo kan aan u baahanahay si dunida aan isbedel uga sameeyo waa maxay resource-ka nabi maxamed la siiyay calayhi salaatu wasalaam inuu dunida bedelo ilaahay wuxuu ku yidhi ka istuuduubayo kac oo habeenkii intiisa badan tuko nuskii tuko ama wax yar ka yare salaad badan la kaalay baa la yidhi salaadaadu ha badato waayo waxaa kugu soo degaya baa la yidhi oo lagu faraya innaa sanulqi calayka qawlan thaqiila war culus ayaanu kuu dhiibaynaa baa ilaahay leeyahy war culus oo aad dunidan oo dhan inaad ka hor tagto oo qur'aana baa lagu faraya laakiin zaadkaagu dhibta iyo mashkiladdaasi weyn waxa aad kala hortegi kartaa waa cibaadadan baa la leeyahy iyo ina naashi'ata alleyl iyo habeenkii ta la amaamudo salaadda habeenkii la tukado idan waxaynu arkaynaa in dunida la bedelo culayska ay leedahay waxa kaa fudaydin kara ee abuuri kara inaad dunida tan dhibta kaaga imanayso dhamma ay fududaataa waa xidhiidhkaada la leeday inta uu xooggan yahay waa salaad inta aad tukanayso sida awgeed ayaa nebiga markay dhibtu ku adkaatay haddana waxaa la faray tasbiixdiiyo salaadda inuu badiyo waa markay dhibtu ku adkaatay markii la yidhi fasdac bima tu'mar waacrid can ilmushrik ku dhawaaq baa ilahay yidhi wixii lagu faray qoladan gaaleed ee ilaahay dafirtay iyo kuwan mustahzi'iinta iyo waxaasoo dhan kaaga filan ilaahay wuxuu leeyahy walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun waa ognay baa ilaahay yidhi in laabtaadu inay cidhiidhiyami doonto waxay kugula hadlayaan dhib baa kaala kulmi doonta laakiin maxaa xala fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin baa lagu yidhi tasbiix iyo taxmiid la kaalay inta sujuudana ka mid noqo idan mashaakilka adduuniya culayskeeda haddaad rabto inaad ilowdo haddaad rabto inay kaa dulqaadanto albaabka rabbi garaac baa la leeyahy wax kale oo dhan ha qabane dikrigiisa badi salaadiisa badi cibaadadaa badi si awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ina leeyahy ma nebigoo qura ah maya waa dhammaan yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu biالصabri والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين لبدا يضاد سورة البقرة كجرا إلهي وحلي كوة إيمانك لغا هلايو dhibtu markay idinku timaado waxaad kaalmaysataan sabir iyo salaad baa la tilmaamaya idan waa manfac dunawiya waa min maqaasida aynu salaada u tukanaynaa waxaa ka mida baynu leenahay markaasi inaynu nolosha adduuniyo ay inoo fudaydiso in culaysku inaga dego inay dunidu problem inagu haynin in wax allaaliya wixii kaa hor yimaada waay aanay kugu haynayn dee man biyadihi malakuutu samaawaati waalardi baad ku xidhantahay ciday gacantiisa ku jirto adduunkan cir iyo dhulba allaha maamula ee kun fayakuun wixiisu yahay ayaad hor taagan tahay waa ciddi qura ee wuxuu amraa ay socdaan wuxuu reebaana aanay imanaynin sida awgeed ayuu nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam xudayfa xadiidkiisii xasanka ahaa waa kale idaa xasabahu amrun
فزع إلى الصلاة. نبي عليه الصلاة والسلام هدي وحبابا ورورقليان وفرصة سيدو النبي وفهمي وحي الله فري إنك هدي وحينا ورورقليان معينو دانا بل طلق أوتك بل أو هبل أوتك بل تاجر هبل أوتك marka waxa dhib ku qabsata ama mashkalad ku qabsato waxa koowaad aad uga ka fakartaa makhluuqaadka u badan cidiyaad leedahay in kugu ag xeeranaad leedahay waxbay qaban kartaa manhi ma aha inaad bini aadamka kaalmo weydiisato laakiin waxa ka muhiimsan inaad marka hore albaabka ilaahay garaacdid waxa ka muhiimsan nolosha wax kasto kugu cuslaada inaad xagga rabbi ula kacdid ولذلك بقى النبي عليه الصلاة والسلام قضية دا انتو فهمي وهو كل رغمي أيوه الصحابي قاسي كورين يا ولاي إذا حزبه أمر هدي وحبابه ورور قليان فزع إلى الصلاة حق الصلاة دا أيوه عرر يشري إلا حديث كاتغاني أرحنا بها يا بلال أما وكنت المامة قرة عينه نيتي وحيشي سكدوك ستو إذا وحن لا نهي صلاة أجر وكل رادين نوادب دنبيجا مايدا أجر بالوجه هلا جنة لوجو قلا قيامها مركل التجوا وحوجه الرجال اسكو حسابه هدي وين أكسناتو جنة ذات هركجة وحصورنا وينو هينا وجنة إيو آخرة كسابسن لكن وحن كور رمينا وامحي ومنافع دنوية وحن كور رمينا وحويان عبادة ما آخرين ولسوا جنا مساء دون كيف فائدة لهذي وحويان دون كيف فائدة لهذي أدون كي دقن كاجا بدليسة علماء التربية علماء السلوك وحي كنت تخصصين رمي وإن لبدل دقن كغفك بني آدم كا هذا ضربت دقن كاجا إن بدشد صلادادها حوجيسته صلادادها قروح بضته صلادادها تراب بضته صلادادو تين نبي هو كات عليه الصلاة والسلام تسوحها السبب يسا اسبدل نولادين الدعاء وحلالية وح السلوكيات كاجي إني وناق نقو كران إذا وحن لنا هاي ومنفعة دنوية إنتان منفعة آخرة لقاري وحن لنا الزكاة ومنفعة دنوية الأصل الشريعة يتلمام سواء محي كي لا يكون دولة بين الأغنياء مركو هربا هنتيدا وحن لوغو تلقى لي إن أنا إداد يرجع أنت تكو أرورين إنت كلنا كبختنين داد يرجع أنت ودين أنا كو أرورين marka shariicada islaamiga markaad eegto hantidu markay ururtaba dib baa loo burburiyaa oo dadka loo dhexgeliyaa مثلا dhaxalku waa maxay wadanadan gaaleed nin baa xoolo badan helaya carruurtiisa mid quro ka mid uu dardaarmaya marka lacagtii way sii buurnaanaysaa oo dadkiina waa lacag beelaya hantidii bini'aadamka oo dhammi laba saddex nin bay ku ururaysaa maanta waxa la tilmaamayaa dhowr qoys ayaa hantida dunida taallo oo dhan nuskeed iska leh hadda waa dhowr qoys hantida dunida kor taallo oo dhan nuskeed iska leh maxay saasi u dhacday waxaan jirin nidaamka dhaxaleed ee islaamku u dhigay oo nidaamka dhaxaleed ee islaamku wuxuu tilmaamayaa waxa uu tilmaamayaa ka inoogu xoolo badan ee maalintuu dhinto ayaa hantidiisii la qaybinayaa afartaneeyo qof unbaaba dhaxlaya dabeetana middle class-ku unbay ku biirayaan dadka ka mid ahaanayaan hantidu markaa ma noqonayso meel la isku gumaysto marka sharciga islaamiga dadku si dhab ugu dhaqmayo ilaahayna wuxuu leeyahay qaacidaduba waxay tahay kay laa yakuuna duulatan bayna alaghniyaa inaanay hantidu noqonin uun inta qaniga ah mid dhex joogta haddaba ilaahay wuxuu leeyahay khud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakiihim xoolahooda ka qaad baa ilaahay yidhi zaka ka qaad tani waa tii faralka ahayd taasoo nafahooda iyo maalkoodaba lagu tahirayo oo lagu kobcinayo nafta bukhliga iyo dhaqamada xunxun bay ka tahiraysaa dhanka kalena waxay samaynaysaa takaaful ijtimaaci bulshadu inay isku filaato systemka gaaladu waa lacag laga qaado dadka oo cashuur la yidhaahdo laakiin mostly cashuurta waxaa la yidhahdaa waxaa laga qaadaa dadka tamarta yar leh maalan cashuurta bini aadamku waa inta badan ay qaadaan waa income tax bay u badantay cashuurta marka la qaadayo miskiinka yare xoogsaday ee dhididay ee mushaharka qaatay
dowladaha Yurubiya meelaha kan boqolkiiba 30 boqolkiiba 40 kuwa ugu yari oo liberal democracy-ga Mareykanka iyo meelahaasi 17% meelahaas ay qaadaan kuwa social democracy-giina ilaa boqolkiiba 40 bay qaadaan marka miskiinku wixii hanti soo galay mushaharkaaga shaqaysatay مثلا ka soo qaad 10,000 baad shaqaysatay boqolkiiba 40 bay dawladdu la hadhaysaa maxaa ku soo hadhay haddii 10,000 ay 4 la kacday maxaa soo hadhaya 6 baa soo hadhaya 6daas haddana markaad suuqa wax ka iibsanayso faat wax la yiraahdo la qaadaa shay kasta aad iibsato مثلا Scandinavian kuwa boqolkiiba 25 baa haddana dib lagaaga qaadaya boqolkiiba 25 kale markay la tagaan haddana maxaa ku soo hadhay يعني waxa adigaba kugu soo baaqi noqonaya wuxuu noqonayaa wax yar عن ظلم baana lagaaga qaadaya xooga kuwa xoolaale maxay iyaga lagu sameeynaya income kii sanadka soo galay baa cashuur yar laga qaadaya marka laga reebo loopholes badan oo kale ay sameysteen oo ah inay investment sameeyeen ka wax laga yaabaa in la yiraahdo shirkadaha ugu waaweyn ragale in la yiraahdo sanadkan cashuurtiisu 0 bay ahayd oo maxaa dhacay waxay leeyihiin intaas investment u sameeyay inta caynka mu sameeyay income saasi ma jirin hadiiba laga qaado waxa laga qaadaya waxa la leeyahay ninkani billion dollar buu haystay 1 milyan buu faa'iiday milyankaas laga qaadaya 40% ki ama 30% ki wixii la qaadayay oo halka bilyanna waa soo shibay leeyna iyada laga qaadmaayo waa wixii uu hore u helay sanadka dambe milyankiina wuxuu ku biiraya waxaan cashuurta laga qaaday marka sanad walba isaga waxa laga qaadaya inta markaa soo gashuun intii hore se laga qaadi maayo ama shariicada islaamiga waxa la qaadaa hantida qofku haysta asnaaftii uu quraanku sheegaya ama diintu ay sheegtay oo dhan ayaa 2.5% laga qaadaa walidaalika waxay yiraahdaan Mareykanku wuxuu cashuur qaado oo dhan marka la isku daro waxay u dhigantaa bay yiraahdaan haddii nidaamka islaamiga lagu xisaabiyo 3% bay u dhigantaa bay yiraahdaan that means sharciguna wuxuu qaaday maxay 2.5 laga qaaday dadkii qaniga ahaa oo la siiyay dadkii fuqarada ahaa iyaguna waxay qaadeen wax 3% u dhigma oo laga qaaday inta fuqarada nafta la isugu keenay inta aqniyadana wax yar laga qaaday idan cadaaladdu waxay ku jirtaa dunida marka la eego kan islaamiga bay ku jirtaa laakiin inagu waxaynu rumaysanahay diinta inaan lagu dhaqmi karin dadkana cashuur laga qaado dawladdu cashuur la'aan inaanay noolaan oo systemku cashuur la'aan inuu baabaayo waxa soo dhameeyay jahligeena soo duuduba waxaan leenahay si dadku uu noolaado qofkii dan yartay aan waxba haysanin عن طوع بو قفكي وحيستي وبحنايا إنه 2.5% هنتيديسا كبحيو سي بلشدا لوغا وايا wax فقراء فعلا هدي سيدو شرعو شاغاي لو مامولايو فقير لما هلان تصالة بسيطة دكتور شينا waxa la iga sheegay inuu talkii u tagay dabeetana uu yeeray inay zakada bixiyaan reerihii qayb ka mid ah reerkii ayaa aqbalay odayaal buu sameeyay zakadii bay qaadeen soo liskareeyay buu dadka fuqarada ee reerka ku jira waa la soo liskareeyay dadkaasi sidee u kala liiteen buu wuxuu siiyay cid wax siiyo waxay ku tala galeen inuu noqdo qof isaguna sanadka dambe zaka bixin karaya reerkii sidee u wadeen reerku uu faqri beelay marka la uu faqri beelay waa maxay dhamaantood waxay noqdeen dad zaka bixin kara dhamaantood waxay noqdeen maxay dad zaka bixin kara waa model yar oo kooban waxa aan tilmaamaya ma aha model umadeed waa model walba reer miyi ku saabsiisan ma aha dad xoolo leh iyo lacag leh iyo kalama yahay taasi waxay tilmaamaysaa zakadu inay tahay maxay nidaam takaaful ijtimaaciya qaab bini aadamku uu wada noolaado qaab bulshada looga tirtiro in faqrigu jiro qaab ay u dhici karto inuu dadku mustawa uu soo gaari karo dhammaantii inuu noolaan kara intaa waxa dheer de jannadii iyo aakhiro iyo wixii ilaahay ballan qaaday iyo barakadii xoolaha lagu galinayo namaagi ku dhacay waxa ku soo hadhayna waa dhankeedii kama waramayna marka fawaa'idii diineed ama aakhiro ama ajara ay lahayd kama waramayno laakiin waxaan leenahay manaaficda dunawiga ku jirta waxay tahay waa system sameynaya inay bulshadu hesho takaaful ijtimaaciya oo isku filaan karto iyadoo aan cid kale wax weydiisan waa hadii maxay sidii loogu tala galay u socoto
idan waxaan leenahay manfac dunawiya baa ku jira manfac financial dhaqaaleed baa ku jira manfac social oo bulsheed baa ku jira manfac baa ku jira inaan dadku xaqdiisu qabin dunidaas xataa axsaabta dowladuhu waa wax mahaysatada iyo waxaysatada ayay u kala qaybsan yihiin waa axsaabta bidixdoo wax mahaysatada taageerta iyo axsaabta maxay inta waxhaysata taageerta kuwa inta waxhaysta taageerta markay dowladda qabsadaan dadka waaweyn bay cashuurta ka dhimaan kuwa yaryar bay ku kordhiyaan qaabkaasay u dhaqmaan wax mahaysatadu markay qabsatana iminka laftooda xagga kale iskaga biireene kuwa waaweyn bay cashuurta ku kordhiyaan kuwanna benefitska la siiyo waxyaabaha la siiyo bay tiro badiyaan waxaan lagu leeyahay galbeedka axsaabta bidixda iyo axsaabta midigta qabsada waa labadan sistemuun waa labadan qaab dhaqaaleed ee kolna qoladan naaxsan la sii naaxinayo kolna qoladan la yaro rifayo kuwa kale waa qolo colaadi ka dhaxayso ama fi shariica dadku walaaluu ahaan karaa waxbuu isa siin karaa isagoo weli walaala waan loolan ka dhaxaynin loolankoodu yahay loolan ajarka ku saabsan saxaabadii ashtakootay kama ashtakoonin nimankii lacagta lahaa lacag bay haystaan ee waxay ka ashtakoodeen ajarkii bay la tageen dabeetana waxa la yidhi idinka miyada saan u tukanay u tukada xoolana way haystaan bixiyaan bay anagu ma hayno waxaanu bixino marka ajar bay doonayaan iyo waxay bixiyaan inay wax haystaan kuwa kani kama xuma idan cuqadkoo dhan baa baaba'aya haddaynu hore uga sii gudubno ay waqtigaa kooban manaaficda dunawiga ee soonku sidii cibaadaadka kale akhlaaqiyaadka aad buu wax uga bedelaa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam markii ku tilmaamayay ninka aan dee hadalka beenta iyo xumaa iyo dhaqan xumada ka tegaynin waxba inuu isgaajaysiyo looma qabo soonku waa meel qofka muslimkaa lagu traingareeyo in aanay ku dhicin waxyaabaha kan dhaqan xumada dhammaantood saa daraaddeed waa tadriib camaliya waa tababar waxay yidhaahdaan cilmiga iyo fanka alfunuun art waxa u dhaxeeya waxa weeyaan ugu weyni aqoonta inta badan theoretical baa loo qaataa waa macluumaad madaxa gala laakiin waxyaabaha funuunta ahi tadriib camaliya u baahan yihiin inaad waxa fahamsantahay uma baahnee in sida loo sameeyo lagugu tababaraa bay u baahan tahay cibaadada soonku marka koowaad waa tababar qofka lagu tababarayo dhaqanka qofka muslimka oo dhan ilaa xad la soo gaadhsiiyey xataa haddii lagula dagaalamo waxaad tidhahdaa inni saa'im laakiin bal aan dhankaa hore uga tilqo ilaahay nabigu wuxuu ku tilmaamaya soonku inay junna tahay gaashaan inay tahay dhaqan xumada waxa kan waa gaashaan caafimaad soo ma ogidin Nobel Prize-kii la qaatay 2016 ee medicinka soon baa lagu qaatay waa Nobel Prize-kii medicinka caafimaadka iyo human anatomy-ga waxaasi Nobel Prize-kii lagu bixinayay 2016 waxa lagu qaatay maxay soon baa lagu qaatay waxa qaatay nin Japanese oo la yiraahdo Yoshinori Ohsumi ayaa qaatay Yoshinori Ohsumi muxuu soo kordhiyay waxaa jiray system dhowr lixdanadii la soo ogaado intaaba aqoonta ay soo socotay oo marar badan oo kala gadisan ee lagu qaatay xataa Nobel Prize oo tilmaamaya qofka bini aadamka iyo jirkiisa iyo qaababku isu difaaco waa waxana u yaqaaneen dhakhaatiirtu autophagy waa kelmad macnaheedu yahay self eating ama الالتهام الذاتي iscunka shaygu inuu isagu iscuno jidhkeennu laba qaab buu sameeyaa bay yidhaahdaan oo isu cuno waxay yidhahdaan unugyada jidhku marka waxa la siinaya iyo wax soo saarkooda waxa la siinaya ay tiro bataan unuggaa waa laga takhallusaa يعني مثلا تصالها دنكا كغرانيسا سoo qabto gaari yar oo duqaad wadata dabeetana maalin walba bir baa jabto lacag baad gelinaysaa lacag baa marka dambe waxaad oranaysaa warkan mala inaad ka takhalustaa ku dhaanta
إلا ما ودي كريسو خرج قال يا كبدر يا محي منفعة كسر نقنية مركا ولا قد تخلصها هذه سجارة ويسكفي عين هي علده باتري وكحم هذا يا مشايك على كحم هذا قاعد قلنا تورته وبهني ذا محاضو بهنتهاي هنا باتري قبل دشيد باتري عصبون أنت اللي قليل الطويل هذا واحد عن شركة أنه نجيده كتيرة قوة ضعيفة شركة نفقد الصين يا ما وح شركة الصين يا كبر انتهاي وحقبت كودا ولا قد تخلصها إلا واحترم لها قوة خلق قالي يا ما فيروس أما بكتيريا أما وحكة على خل قالي إن أنت خلق شيء أي البربرية مركز البربرية أنت أسي أي ولي بوح الله وطلع لا إنه قاب شركة وقفة إذا سكروا النقطة ونقع حتى وكتخلص بينه هي شركة مركز نوعه أنت لا فرفرة سبير بعد لقديها برلي بحبو دبوا النقطة وشركة مالية كلا واستعمال كريه أي له استعماله سيستم هذا سي توفاجيك يو سيستم لبعضه كلا إلا دوري الإحدى الندي بالسوق هذا لبكون يو كون سجال بقولي أفريقيا تضوات كي مربع نوبل برايس لقو قاطي لبكون يافرتي مربع نوبل برايس لقو قاطي وحكم ده لكن نينك كان محو قاطي سو نينك كان وحو قاطي وحويان وحو أجادي سيستم كاسي واحد رجالية ونجيو جاتشي سيء ده بتنا وحا كسوا بحيا سيدا وفي عن سيستم كاجا الله استاري كره وأكتف النقطة كرابي لين وين قفك للسومية وين للسومية مركزوا اللي بوحي ليهين صانك وفي عننا دون يمكن صامن بدن باستعمالها قاري هذا هيلب كلا كسومية قاري هذا عندات كسومية سالين معان تدعب بيسا قاري هذا وتسومية سبيه هذا عب بيسا دمر كان يكون كبداعي وحكن ولا السومية برورتها للسومية واضطرابات كون دقة يا عندات كسومة أنا وحيد هذا شالك علوش السومية وللاضطراب صانك هو معنى بدأ هذا دون الاستعمالها لكن كاني حليه هدات ربطين الضالين يرى النقطة هدات ربطة بين تعاجيدة شركة قوينا أنو مركز قبودة ده يدو كلا قاعدين الله من يوحي لهم ده وحال قربها بيلي صونك بتصطو هدات صونك بتصطو بيلي رينيول إنه شركة قد بسو أبو رد بو دلين يروبو أيكو بدن يسبيلي وحيلين certain bacteria يا certain viruses كميدا وحكا تخلص يا بيلي النظام كان صونك شركة كدليا waxa uu tilmaamaya waliba buu leeyahay soon waxa ugu fiican ta loo qaybiyo bay yiraahdeen 16 to 8 sideed saacadood oo wax cuna iyo 16 soona bay yiraahdeen approximately waa inta muslimku Soomaaliya u badantay habeenkii fiidka ilaa iyo maxaa la yiraahdaa salaad subax horteeda wax 8 saacadood ku dhow baa wax la cunaa inta kalena ولا صومنا هذا مركز ولي بوحوا ليهين هدي بلا صومه وفيري جود بيلاوي في عنتي هدي كلا يشوري وحو كتالينا إياه يشوري سيستم كيسوحو تلمام يا بيد هذا إن ويجي لبا مع الموض للصومه شريعة إنك محن النبي عليه الصلاة والسلام أسبوعي هلا صومه محي السنين يوم خبيث هلا صومه إذا waxay imika inoo sheegayaan oo Nobel Prize ku bixiyeen ma aha arin wadaad sheegay iyo wadaadadu waxay sheegay أحد العلماء قرأ كتاب يرى الله يراده معجزة الصوم أيه وحيد وحنا سيدي كتاب كي إديشن دم صار طبعة جديدة صار مركب وحنا سيدي بيقول بالبار هذا وحي لقري صدح سنة جدهد محيد مسجال بقول أو ريسيرش أو عصب أيه لقري بيقول يا صوم كصاب صارون وجاعات يدرون قري وصوم كورمية إذا waxay leeyihiin maanta haddaad caafimaad rabto xadiidkii nabiga muxuu ahaa bini aadamku ma buuxiyo maxay meel ka shar badan calooshiisa haddaad caafimaad rabto bay leeyihiin soonka weeyaan waxaan leenahay marka soomku dee qoladii saynisku innaga waxayna leeyihiin si aad u dhalin yaraato u caafimaadid oo bakteeriyaadka qaar iyo virusaska qaar u dili kartid oo jidhkaagu uu dhalin yaroobo dib uu isu dhisi karo sbeer baadhkaagu uu fiicnaado jidhka wixii kharash kugu hayay inta la dilo in adiga sbeer baadh lagaaga dhigo say waxaasoo dhammi kugu dhacaan bay leeyihin waa inaad soontaabo idan soonta waxay leedahay bay leeyihin manfac dunawi oo caafimaad ahaan marka la eego waxay leedahay
manfac suluukiya oo dhaqanka iyo isbeddelka ay ku samaysaa waxay leedahay manaafic tiro badan oo dunawiya baynu leenahay haddaynu ka u dambeeya wax ka tilmaamno xajka ilaahay wuxuu leeyahay waadim dadka ugu dhawaaq baa la yidhi nebi ibraahim bilxaj way ku imanayaan iyagoo saaran maxay iyagoo luga iyo calaa kulli daamirin mid boglaalan iyagoo saaran maxaa loogu yeedhayaa baa la yidhi liyashhaduu manaafica lahum liyashhaduu inay soo xaadiraan manaafic baa la yidhi lama sheegin bay culammadu yidhahdaan manaaficdaasi mid dunawiya iyo mid ukhrawiya iyo mid walba way noqonaysaa xajku kow sidii soonka oo kale dhaqanka iyo akhlaaqda waa lagu hagaajiyaa oo ilaahay wuxuu tilmaamayaa qur-aanka haddaad xajka gashaan falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj afxumo dhammaanteed iyo faasiqnimo dhammaanteed iyo muran dhammaantii ma jiro idan waxay yidhaahdaan xajku waa meel kulamada dunida ka dhacee ugu waaweyna waa kulan ay isugu yimaadaan caalamulislaami oo dhami ama dadka muslimiinta ee dunida degan oo dhami waa meel aan odhan karno malaa af dunida lagaga hadlo aan markaa lagu hadali ma jiro raysiska ama mujtamacaadka dunidao dhan baa isugu yimaada ee muslimka ah haddii si fiican loo maamulo markaa kow waa meelay dadka muslimiintii qadaayaadkooda siyaasiga ku gorfayn karaan oo madaxdooda iyo dadkooda isugu yimaadaan waa meel dadkooda aqoon-yahanka iyo aqoonta isku weydaarsan karaan taariikhdii hore muslimiinta culammadii muslimiinta ee dunida ku kala laalayd waxay u qasdiyi jireen marka uu rabo fanni ama wax culamo waaweyn oo mutakhasisiin ku ah in lagala kulmo xajkay usoo qasdiyi jireen muddada xajka la jooga bay ninka sheekhee markaa fanniga lagu tuhmayo ama cilmigaasi laga rabo ayaa laga dareersan jiray oo laga marsan jiray idan waa meel aqoon diineed hama noqoto ama aqoon kale ha noqotay waa shir caalami iyo muslim oo dhami joogo oo aqoon-yahankooda uu isugu iman karo waa meel shir caalami uu ka dhici karo dhaqaalaha ummadda muslimka ay isku weydaarsan karaan ummadda muslimka ahi xidhiidh dhaqaale ma leh dhammaantood gaal bay leeyihiin xidhiidh dhaqaale nin waliba ninkii gumaysan jiru ku daba xidhan yihin laakiin iyaga dhexdoodu waddanka kugu xiga muslimka waxa lagu sameeyo ma ogid laakiin londonta lagu sameeyaa taqaanaa waa jayrata lagu sameeyo waa meel ay waa macrad ay ku soo bandhigi karaan ummadda muslimiinta oo dhami waxay soo saaraan waayo waxay ka mid tahay cibaadaadka la ogoliyo tijaarada marka waa meel lagu soo bandhigi karo dhaqaalaha dadka muslimiinta oo dhami ay isku weydaarsan karaan waa meel dadka muslimkaa lagu baro haqaafatu salaamka nabadgelyada haqaafada loo yaqaano waliba soomaalidu malaa aad bay ugu baahantahay waayo waa meesha la yidhi markaad tagto dee dadka daaye dhirta ma goyn kartid baa lagu yidhi oo shimbiraha ma duulin kartid oo waxba wax waliba waa inay kaa nabad galaan wax waloo meeshaa jooga innagu se markaynu tagno war inaga celiya bay yidhaahdaano group yaroo waliba inta israacaan bay dadka inta kale nafta isugu keenaan asalku laakiin wuxuu ahaa haqaafatu salaam meesha qofka muslimkii markuu tago inuu barto wax walba inuu nabadgeliyo waa meel ay dadka muslimiintii ku bartaan iihaarka iyo waxay diintu fartay oo dhan waa meel aan kala sarrayn lahayn oo madax iyo majabo la isugu yimaado cibaadaadka islaamigana saasay u badan yihin salaada halkan madaxda wasarada madaxweynaha maxaa la yidhahdaa masaakiinta tujaarta safkunbaa la wada galaa sufuf gaari ma jirto ay qola leedahay xajkuna waa sidoo kale waa meel ummadda muslimiinta oo dham ay isugu yimaadaan weliba waxay yidhahdaan isagu wuxuu dheer yahay waa meel aan shaaraadka loo galayn bay idhahdeen ashaara yani waxay yidhahdeen bini aadamku dharka waxyaabaa loo xidho inaad isku qurxiso waa loo xidhaa inaad dhaxanta iyo waxaan iskaga celiso waa loo xidhaa inaad cawrada ku asturto waa loo xidhaa waxa kaloo loo xidhaa bay yidhaahdaan in laysku kala garto laysku kala soocmo tujaartu ama style gaara ha u toshaan ama maryaa nooc gaara ha qaataan masaakiintuna maryo gaaray qaataan
طبقة ولبا أسكرت يمي لتريقا نرقارا لو حدا صحيح كما wadaadadu de wada khamiis bay sitaan dhar gaar oo ay dadka kaga yara soocayin bay sitaan saaka ma waxay dhan waa shaara waa astaan de astaantuna culimada psychology waxay yiraahdaan dharka ma inaga sidana mise isagayna sitaa su'aal adiga weelan bay ku leegtaa laga yaabo laakiin iyagu waxay isweydiiyaan dharka ma inaga sidana mise isagayna sitaa waxa dhacday Princeton University qaybteeda psychology-ga ayay tijaabo ku qaadeen ardadii jaamacadda in qaybna maxaabiis laga dhigo qaybna askari jeel laga dhigo muddo 14 casho ah tajribada in la qaado dabeetana ardada on their own will iyagu siday doorteen adu ma askargaad noqonaysaa mise shacabkaad noqonaysaa baa la weydiiyey waa la qaybiyey qaybna waxa laga dhigay askari jeel qaybna waxa laga dhigay maxay maxaabiis 6 maalmood oo qura markay tajribadu socotay baa la joojiyay waayo waxay dhahay ardayda dhaqankoodii buu isbedelay kuwii maxaabista laga dhigay ee dharka cadad loo xidhay zansanada lagu riday meeshan qaar baa dumay bay yiraahdeen kuwii kalena zabaaniye qaar baa noqday askari jeelka noqday yani waxay yiraahdaan qofku wuxuu imitate gareeyaa bay yiraahdaan marada uu sito tusaale hadaad imka khamiis iyo cumaamad iyo koofiyad iyo intaas ku duuduubto halka martid dhaqamada qaar sameyn mayso waxaad soo dhaysaa dadka kula yaabaya Soomaha inay wadaada taayo waayeen laakiin hadaad shaar yar oo gacmo soo xidhatay iyo surwaal yar oo labada low jooga hadaad iska boodboodo cidna kula yaabi mayso waayo astaantaada sheegaysa inay tii boodboodka tahay idan waxay yiraahdaan dharka maynaga sidana markaa mise isaga ina sitabay leeyahay waxay leeyihiin dharku wuxuu muujiyaa qofka bini aadamka waxa gudihiisa ku jira walidaalka baa la ina faray madaahirta faasiqiinta iyo mushrikiinta iyo madaahirta dadka ahlu taqwa iyo muslimiinta inay soo ekaanin marka shariicadu tilmaamayso waxyaaba ka dambeeya bay leeyahay masalada tan hadaba bay yiraahdeen xajka waa meel dadka la faray inay shaarna qura wada qaataan laba maro oo hadaynu tolmada iyo sida loo tasho isku kala soocan jirnay isku wada tolmaa aan laba tolin ee kala baxsan muslim midabka isku nooc u dhadhow waa iska banaantay midabadu inay kala bedelaadaan laakiin waxa dadku jeclaadaan ama sunnah u dhow inay kuwa cadcad iska noqoto nabigu kuwa cagaaranna mala waa qaatay be ala kulli hal dad koodhami madax iyo mijo maal qabeen iyo kaan waxba haysan miskiin iyo mid waliba laba maro cadcad u sitaa waxay tusaale muujinaya ka tahay عند الله بشكو إنه سكمديه إنه مهما إنه سكلا صعنا مركا إنه ملاك أنا جوجنو عند الله سبحانه وتعالى مركا لا يصير تاجي إنه سكمديه هاي ومهرجان دنا اللغة عضين يا مركا مدن ماذا بنا آدم كا إن أنا عضان يا مدو يا عسان يا مالقبين يا وزير لا أخو كلا سرينين عالم يا مسكين إن أنا كلا لهين عند الله دتكو إنه سواسية يهين بأعمالهم يوح قلوبته دكتشرون إن الله أكتي سيوك للدو يهين بالغت المامية إذن حجك ومال تلمامة رقمة السنان تيا مدنمة لغو تلمامو ومالها وقو بدنا لغو صوبان ديغو ومشي اللي نريد مان تيم بنان وضا فريستا وبور يرو عدلا وضا الساحلة وفراشي وحبطور الله المستلفات سيحانسا عرفات ستوبيسا دقح بعد مالكو وضا طوريسا دقح كلو مالكو يالبا دمانتي كو دا وريغيسان إذن waxay waxa soo dhamay tilmaamayaan bay leeyihiin dadka sinaanta lagu tababaraya inaan wax iskala sooc la yiraahdo aanay jirin waxaan leenahay waa meel loo tago dadkan siyaaxada inagu malaha Soomaalidu iska foqoro ma aha dadka tourism kama naqaano Soomaa dad lacag ku bixiya man intii la cunayaa baynu laanahay marka meel daawasho lacag inaga ma baxdo لكن هذا المال وندا وشتقي لهيد واحد قياس ده جورجي كواد إلهي عبادة وورسي أول بيت وضع للناس هذا واحد قال بينك وهذا قال إن كيش شكسبيري يا كرسي شكسبيري ورماشي بوجوه الرئيس عبادة الله نسوا إنها تصاب وقته أول بيت وضع للناس إنها تصارك تم مساجد النبي محمد لي تدبات النبي بكتو كذي مسجد خيف تدبات تكون النبي بكتو كذي inaad soo aragto meeshii ay saxaabadii iyo ambiyadii iyo dadkii wanaagsanaa mareen inaad soo aragto meeshii nabi ismaaciil deganaa ama nabi ibraahim
markuu wax dhisayay isku tagaa macay haddaad rabto uun siyaaxo wax la yidhaahdo tourism haddaad inuun ka fakarayso oo tarfiih aad raadinayso meel loo tarfiih taga iyadaa idan waxaan leenahay soo duuduubo cibaadaadka islaamiga ahi ee mabaanidan ka warramayaaba kuwa kale hay dambeeyaan ee salaad leh ee zaka leh ee soon leh ee xaj leh waa cibaadaad leh manfac adduunyo oo adduunka inta aynu joogno waxayna taraya adduunka inta aynu joogno ayaynu manfac ka helaynaa adduunka inta aynu joogno ayaynu system ka faa'iidaynaa qaab loo noolaado adduunka inta aynu joognaynu ka helaynaa suluuk iyo dhaqan iyo akhlaaqiyaad aynu bedelo adduunka inta aynu joognaynu ka helaynaa caafimaad waxay tilmaamaan xataa salaada mid baan arkayay ka qoray sidan loo tukado iyo bini aadamka jirkiisa waxay ka bedesho bini aadamka jirkiisa iyo waxay ka bedesho soo duduuba waxaan leenahay manaafic aad u tiro badan oo dunyawiya bay leedahay ha ugu horeyso kuwa akhlaaqiyaadka ah ee bini aadamku waa values hadday value-gu dhinto akhlaaqiyaadku hadday dhintaan waxba ma jiraan dad ma jiro waayo caqaa'iddu waxay abuurtaaba waa akhlaaqiyaad cibaadaadku waxa ugu badan ay abuuraana waa akhlaaqiyaad dhaqanka bini aadamku iyo noloshoo dhami hadday tijaaro tahay hadday dhaqaalo tahay hadday siyaasad tahay hadday wax kasta tahay values baa xukuma ethics even qaanuunka waxay yidhaahdaan qaanuunku waa inuu akhlaaqi noqdaa idan wax kasta oo dunida ka jira bay yidhaahdaan wax bays u ahay waa maxay waa akhlaaqiyaadka waa ethicska cibaadaadkuna waa waxa ugu xoog badan ee ethics abuura ee akhlaaq sameeya waa waxa ugu xoog badan innagana xaggee markaa wax iska dhaafeen innagana waxaad moodaa mar kastaba in akhlaaqiyaadkii sii liidanayaan bulshooyinkeenna kan dambe cibaadadiina waa soo badanaysaa oo masaajidii dad badan baa jooga akhlaaqiyaadkiina way sii liidanayaan yacni waxa weeyaan asraartii iyo xikamkii ilaahay kitaabkiisa ku sheegay cibaadaadku lahaa ayaynan si fiican u dhuuxin ama cibaadaadka laftoodii ayaynan sidii la rabay ula imanin oo u samaynin waxaan jeclahay in warku koobnaado oo aynan ilaa casarkii baaba fadhideen baa la yidhaha wakhti badan oo kale aan idinka sii qaadin warkaygu markaa wuxuu ku kooban yahay oo dhammi waxa weeyaan waxaan u cibaadaysanaynaa mid waa isku waafaqsanno in aakhiro iyo naar laga badbaado iyo janno waa asal laakiin waxaan kaloo leenahay cibaadaadka waxaynu u samaynaynaa inay adduunkeenna wax ka bedasho waana sababta loo tilmaamayo madaxda iyo dowladda iyo waxaan oo dhammi inay masaa'ilkan xoogga saaraan innaga siyaasaadkeennu dhaqaalaha dadka shaqa abuur ma samaynaysaa bay ka bilaabaan shaqaba abuurmi mayso haddii dhaqanku lumo shaqa abuur waa loo baahan yahay laakiin waxaynu leenahay cibaadaadkan baa waxa kan sameeya saa daraaddeed haddaynu cibaadaadka si rasmiya u sugno noloshu isbeddel dhababa ka imanaysa sala allahuma calaa muxamed